58 sano kadib Soomaaliya waxay u dabaaldegaysaa maalinta xorriyadda. 1960kii 1 Julaay ayay ahayd maalintii la saaray calankeena buluuglow. Jowhar waxay ka mid tahay magaalooyinka dalka ee laga xusay 1 Luulyo. Mas'uuliyiin kala duwan ayaana ka soo qayb galay munaasabadda. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadda 1 Luulyo ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed maalinta iyada ah. maamayaal iscafiya aan gacanta isqabsano ciidamada iscafiya odayaasha iscafiya dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan idin diraa fariin gaar ah idin diraa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay ogaada qiimaha ka leedin dalka waxaan idin leeyahay mar walba u taagnaada sida dalkan uu hawleedan waxaan leeyahay caawo hambalyo 1 Luulyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogaan waxaan leenahay hambalyo maanta waa maalin farxadeed oo looga duwan maalmaha kale waxaan leeyahay hambalyo caawa 1 Luulyo waa habeenkii labadii midowday haddana laabtooda israacday 6 saac habeenkii waxaa caawa aad iyo aad noogu weyn in aan isla wada xusno dhammaanteen ama kulligeenba aan ka soo wada qayb qaadano sidii aan u weyneyn lahayn maalinta 1 Luulyo taas oo ka soo wareegatay 58 guuradii maalintii ay midoobay labada gobol. taariikhda markay ahayd 1960kii caawo kale nin lagu magacaabi jiray macallin Yuusuf macallin Ibraahim Khalid oo reer Jowhar asal ahaa wuxuu yiri sumadeeda la saaray samada Soomaaliya la siisadkeeda sanayaal badan aan sugayni ma aqbalayno kala gogoyd iyo kala qoqobid wixii wada hadala oo walaalaheen ay tirsanayaan waxaan qabnaa haddana shacabka Hirshabelle ka xukuumad ahaan iyo ka baarlamaanba in laga hadlo laakiin midnimada Soomaaliya waa muqaddas waa lama taabtaan 58 sano kadib waxaad dareemi kartaa dalka Soomaaliya meesha uu joogo waxa dhigayna waa qabiil marka waxaan leeyahay qabiilka aan ka gudubno gacmaha la isqabsado inta kadib waxaan rabaa inaan iraado xafladan waxa la yiraahdaa xafladii jamlada ciidii ka soo bilaabataa Soonfur 26 Juun 1 Luulyo jamlo way marka hambalyan idin leenahay munaasabadan qiimaha iyo qaayaha Soomaaliya ugu fadhida waxaan leeyahay hambalyo waxaan rabaa inaan hambalyo halkaan iraado hambalyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibadba waxaan leeyahay hambalyo gaar ahaan waxaan hambalyo leeyahay ummadda reer Hirshabelle waxaan leeyahay hambalyo ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nabad keeno. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ahna kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha Hirshabelle Mudane Cabdi Xuseen ayaa dhankiisa u hambalyeeyay Soomaalida. caawa farxad weyn bay noo tahay reereyn bay noo tahay maalintii qiimaha badnayd ee xusuusta badnayd ee aan ilaawi karin 1 Luulyo ee midaysay waqooyiga galbeed iyo koonfurta xorriyadii lagu qaatay calanka Soomaaliya gumaysigii caddaanka ahaa ee meeshaan lagu wareegay xilka lagu wareegay halkaasna dawlad loo hamuun qabay ee Soomaaliya halka ka curatay Soomaali meel kasta joogtay farxad in loosho ay ku jirtay waayo caawo kala taxuskeeda sidaas weeye. Baxsan Ibraahim Cabdi Baxsan Bilan TV-ga dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Jowhar.